Christian Selner, safiirka dalka Austria ee Soomaaliya, ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka gudoomay warqadihiisa aqoonsiga, iyaga oo wadayeesho kulan looga hadlay doorka dawladda Austria ay ka qaadan karto horumarada ka soconaya Soomaaliya, sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada qaranka, Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta ka gudoomay warqadaha aqoonsiga danjiraha u matali doona dawladda Austria Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Christian Selner. madaxweynaha iyo danjiraha markii warqadaha aqoonsiga laga gudoomay kadib waxay ka wada hadleen sidii loo abuuri lahaa xiriir diblomaasiyadeed oo ku qotoma iskaashi iyo wax wada qabsi oo ay yeeshaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dawladda Austria. waxyaabihii madaxweynaha iyo danjiraha ay ka wada hadleen waxa ugu muhiimsanaa sidii dawladda Austria ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dadaalada midowga Yurub oo qayb ka tahay oo ku bixiyo amniga iyo dawlad dhisidda Soomaaliya iyo sidoo kale taageerada maaliyadeed ee European Union uu toos u siiyo dawladda Federaalka Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa dhinaca kale warqadaheeda aqoonsiga ka gudoomay safiirka dawladda Canada ay u soo magacawday Soomaaliya Lisa Statelborg, taasi oo madaxweynaha warbixin ka siisay sida dawladda Canada ay diyaarka ugu tahay inay sii wado taageeradeeda Soomaaliya. Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in Canada ay ballan qaaday in dhaqaale ay ku bixiso horumarinta waxbarashada Soomaaliya iyo qaybo kale oo muhiim ah. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu warqadaha aqoonsiga maanta ka gudoomay danjiraha dawladda Canada u fadhiyi doona Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Marwo Lisa Statelborg. danjire Lisa waxay madaxweynaha soo gaarsiisay salaan iyo fariin ay uga siday madaxda iyo dawladda Canada. madaxweynaha iyo danjirahana waxay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya dawladaha Canada iyo Soomaaliya oo soo jireen ah runtii. inkastoo Canada ay 30 sano u dambeysay kaalin mug leh ku lahayd dadaaladii beesha caalamka ee Soomaaliya loogu gurmanayay iyo taageerada arrimaha bini'aadanimada, haddana danjire Lisa waxay runtii xaqiijisay in dawladda Canada ay haatan diyaar u tahay gacan mug lehna ka geysanayso sidii loo abuuri lahaa taageero maaliyadeed oo ay dawladda Canada ku bixinayso arrimaha horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka ee dhammaan geeyiga Soomaaliyeed.